halkan waa deegaankii reer Saalax waa dhul nabigeena naxariisna gol kirkiisa aatee waxa uu yiraahdaa ka boqonaysaan ama hadad galaysaanba hagalina inaka oo yimooyaane reer Saalax ama reer Tamuud waxa alla siiyay xoog iyo dhareer aan cid kale la siin marka laga reebo qoomkii reer Caada kaasaan ka soo hadalnay qaybtii hore ee barnaamijkeena sidoo kale reer Saalax waxa ay tan xoog weyn waa la ku manaystay xoog iyo dhareer waxaana dhisi jireen qasriyo idaara waaweyn waxaan alla siiyay nimco dhan waan u dhameystir nimcooyinkii dhan dhulkoodana waxa mid barwaaqo ah iyadoo haddana saas ah alle kuma shukrinaqan ee way ku kufriyeen waxaana ay caabudeen aslaamtii sidoo kale waxa dileen hashi nabi Saalaxna waxa uu yiri alla afis weydiista waa uu nidaam dhaafayay haddaba reer caadiyahaayeen nabiga la soo dirana ayuu ahaa halkay ayay ku dambeeyeen aynu gudagalno barnaamijkeena maanta alle subhanahu wa ta'ala reer Tamuud waxa uu diray walaalkood Saalax alayhi salaam nabi Saalax waxa uu ka soo jeedaa durriyadii iyo faracii nabi Nuux alayhi salaam sida ibn Kathir ku sheegay buugiisa tafsiirka nabiyada nabi Saalax atirtimidiisu waxa noqonaysaa Saalax ibn Ubayd ibn Asifa ابن ماسخة ابن عبيد ابن جادر ابن ثمود ابن جاتر ابن سام ابن نوح عليه السلام وحانو كذا شيء reer Caad oo qaraabo dhow laha iyo xilli xiga qoomkii reer Caad nabi Saalax intaan alle soo saareen waxa uu qof sharaf leh iyo karaamo badan dadkooduna aad ayay u jeclaayeen waana la ixtiraami jiray sidoo kale waxa uu ka dhashay qoys laga habeeysto magaca nabi Saalax alle subhanahu wa ta'ala waxa uu quraankiisa ku sheegay 9 jeer qisada nabi Saalaxna dhowr jeer ayay quraanka ku soo aroortay iyo faahfaahinteeduba reer Tamuud waxa ku noolaayeen deegaan la dhaho Al-Hijri oo ku yaala waqooyiga boqortooyada Sacuudiga waxaana u dhaxaysa labada magaalo ee Madiina iyo Tabuk deegaanka reer Tamuudna waxa lahayn dooxooyin waaweyn iyo meelo barwaaqo ah maadaama isku xigeen reer Caadna waxa ka raaceen xoogoodii iyo dharkoodiiba waxa ahayd dad alla wax ka siiyay waxaana u tidin jireen qabiilo dhan iyo magaalooyin madaxna waxa u ahayd magaalo lagu magacaabo Madaa'in waxaan inta soo dheereed waxa ay qoom xadaarad leh oo ilmaahnimo waaweyn la sameeyay waxaana ahaayeen carab xadaarad leh sidoo kale reer Tamuud waxay xirfad u lahaayeen dhisida guryaha waxaana buurdhan ka dhisi jireen guryo iyo qasriyo qurux badan taasna waxa suurto gelisay awoodda iyo xoogga Ilaahay siiyay marka quraanka laga hadlayo guryahaasna waxa la adeegsadaa magaca naxti oo laga jeedo farshaxan nicmadaas alla siiyay reer Tamuud kuma shukrinaqan ee way ku kufriyeen waxaana noqdeen sidii walaalahood Caad waxaana caabudu jireen dhagaxyo si ay kaalmo wadistaan alla subhanahu wa ta'ala qoomaha laago ilaa uu soo diro miduudiga una bushaareeya alla subhanahu wa ta'ala waxa uu soo diray reer Tamuud nabigoodii Saalax alayhi salaam si uu gaarsiyo fariinta alla uu soo dhiibay ibn Kathir oo sharaxaya aayadda 37aad suurada Araf waxa uu dhahay waxay mufassiriintu isku raaceen maalin iyagoo reer Tamuud shiraya ayuu soo galay nabi Saalax waxaana uu sheegay inay ka dheeraadaan shirkiga una soo noqdaan alle oo iska dayaan aslaamtan ay caabudayaan haddaba reer Tamuud oo kibir badnaa sidii reer Caad ayaa waxa ku jeesteen nabigi waana aflagaadiyeen waxaana ku dheer waxa tahay mid waalan oo sixran nabi Saalax kama quusan inuu dadkiisii iyo qoomkiisii la dhaxmaro diinta sidoo kale markasta waxa xasuusin jiray wixii ku dhacay qoomkii reer Caad oo xil iyo xigaal bala aha oo sidoo kalena ay maqleen sheekadooda waxaan nabi Saalax u sheegay hadii ay toojin waayeen shirkigan ay wadaan inay mari doonaan halkii ay mareen reer Caad nabi Saalax waxa qoomkiisii loo yimi fariin ka tim alle taas oo jidka toosan ku riixaysa kana leexinaysa jidka xun ee shaydaanku leeyahay laakiin qoomkiisii taamay fahansaneen waxaana raacday in yar oo intii badneed way diiday waxaana ku dhaheen Saalax waxa tahay dhexdeeda mid la nacay markii arkeen inaanu dacwadan joojineen ay madaxweyntii ku tashteen inay xujeeyaan waxaana ku dhaheen hadii aad buurta ka soo saartid hal sifaadkeedu yahay sidaas iyo sidaas ilmaheeda yarna sifadaas uu leeyahay kadib nabi Saalax wasu kalsoon ayaa ku dhahay hadii aan sameeyo waxa doonaysaan meeraacan oo meerumaanaysan waxaana ay ku dhaheen hawo ku raacna waana ku rumaynayna kadib nabi Saalax ayaa la bariyay alla subhanahu wa ta'ala waxa buurta amray inay soo saarto hal riman oo isla markaana leh sifooyinkii ay sheegteen sida la quraankiisa ku sheegay aayadda 37aad ee suurada Araf markii ay soo baxday hashi ayay qoomkii yaab markaa afkira taageen kadib nabi Saalax ayaa ku dhahay daaya hashan watii alle wax dhibana hawgeysanina hadii kale calal alle ayaa naasibaysay kadib markii mucjisada arkeen in yaro kamid ah ayaa rumaysay intii kalena way diiday oo kibirkoodii ayaa si batayba iyo inay dhahan wax waa sixir hashina waxa dhashay narig yar nabi Saalax ayaa qoomkiisu ku dhahay hasha wax la socto shuruudaas ah ceelka ku yaala magaalada inay maalin kaligeed cabto inuu kana maalin cabtaan sidoo kale inay daaqdo meesha ay rabto markay saas muddo ku socotay sheekadii way maalin daaqa jirtay ay maalin cabi jirtay
kadib duqeydii ayaa shirtay waxaanay dhaheen sidee maalin dhan keligeed ceelka lagu sii deynayaa hashaas waxaana soo saareen go'aankaas oo ah in hasha gebigeedaba ay ka takhalusaan oo ay dilaan waxaana loo xil saaray inuu dilo nin la odhan jiray qidaar ibnu saalif oo ahaa mid isku darsaday shar iyo xoog badan kadib ninkii wax u diyaarsaday 8 nin oo kale oo la qabta hawsha aayadda 84 ee suuradda namli alla subxaanahu wa tacaala ayaa ku tilmaamay inay ahaayeen 9 nin oo dhulka fasahaadinayay kadib 9 nin oo wada socda ayaa aaday xagga hasha kadib markii ay soo gaareen hashii ugu horreyntii ninkii qidaar la odhan jiray ayaa hashii ku dhaftay hashina dhulka ku dhacday kadib waxay ka taageen warag intaasoo quraata kuma ekeen 8 nin ee kale ayaa iyaguna dhakada kaga yimi oo hashii wax u jarjareen cadcad ilaa halkaas ay ku nafweyday hashii nirigtii reednayntii carartay ayay fuurtay buul kadib 3 jeer ayay qaylisay kadib nebi saalax ayaa qoomkiisa ku dhahay waxaad sitaana quraataan nooshiin waa 3 maalmood laakiin ma ay rumaysan iyagu oo meel ay iska dhigeen balantii saalax haddana mar kale ayay qorsheeyeen inay dilaan nebi saalax waxaana qorsheedana loo dhiibay 9 nin ee hore u soo dilay hashii kadib 9 nin markay isku dayeen inay dilaan nebi saalax wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ka keenay xagga sira dhagax halkaas ayayna ku dhinteen 9 nin intii kale dadka kuma cibro qaadan intaasoo qoraata umay toobad keenin fasahaadkoodii ayay hore u sii wateen kadib reer Thamuud ayaa nabigoodii ku yiri bal loo kan cadaabkaad sheegaysid kadib markii ay dhamaatay 3 cishe maalintii koobaad wajiyadoodu wuxuu noqday midabka jaale xigeenka ah maalintii labaadna wuxuu wajiyadoodu noqday midabka guduudka maalintii saddexaadna waxay wajiyadoodu noqdeen mid madow kadib waxay seexdeen iyagoo aad u cabsanaya waana garan waxa sameeyaan oo isla markaana ka fakaraya sidoo waagu ku bariyo kadib maalintii afraad waxa cirka uga yimi qayladaas oo dhulkii gariirsiisay qayladaas waxa ahayd cadaabkii waxa uu yimi cadaabkii alle qof kastana halka uu tagna ay naftiga ka baxday nabi saalax iyo intii raacdayna waxaa loo amray inay qabtaan xagga iyo shaam raadadkii ay ka tageen reer Thamuud waa kuwa ilaa hadda muuqda waxa la soo wariyay mar nabi maxamed iyo asxaabtiisa oo maraya halkaas yaani deegaanka xijri inay ku degan halkaas waa asxaabtina aadan xagga ceelka oo isdhehna ceelkii Kacba kana weesaysta laakiin nabiga ayaa ku dhaay ceelkaas kana cabina hana taabanina oo ka weesay qaadanina sidoo kale waxa la sheegaa maruu nabigu marayay deegaanka xijri inuu maradiisa wajiga saaray oo hashina socodsiiyay sidoo kale nabigu wuxuu maray halkaas hadan aadno ama hadan soo boqonno inaanan aadin inagu ooyna mooyaane laakiin maanta cagsi weeyo dadka iyagoo faraxsan ayay tageen halkaas oo waxa laga dhigay meel dalxiis waxaana gacanta ku haysta dalxiiskaas boqortooyada Sacuudiga halkaas ay ku dhamaatay taariikhdii qisadii reer Thamuud inta ku kulmayno barnaamijkan barnaamij lamida waxaan naga tagnaa sidaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل